English for vocabulary. Af Somali ereyga cusub warn, ka digid, habit caado ama dhaqan, opinion ra'yi ama aragti, guidance hanuunin ama wacyigelin, counsel talo ama la talin, counsel, solution xal, alert feejignaan, agreement heshiis, negotiate wadaxaajood, determine go'aamin, recommendation talo bixin, feedback jawaab celin, suggestion soo jeedin, assistance gargaar ama caawin, encouragement dhiirigelin, caution taxadar, instruct tilmaamid, aan ku celino tilmaamid, warn ka digid. Tusaale waxaa lagu dhahay ka digid waxa weeye tusaale waxaa lagu yihi wadadan ha marin khatarteeda ayaa badan, waa lagaaga digay, waa diiday, waad martay, waxaad la kulantay waa go-aan aad qaadatay ma warn ereygan taas waxaa loogu dhawaaqaa sida oo kale warn, I warn you, warn ka digid wax lagaaga digay dhibaato kuu keeni kara. Habits caado waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay caado u gaar ah ama dhaqan u gaar ah, dhaqan ama caado waa wada garanaynaa isagana. Habit, opinion aragti, sideed u aragtaa adiga, aragtideed ka qabta, maxaa aragti ood ka qabta, ra'yi ama aragti iyadana waxaan u malayn wax badan kuma jiro. Opinion, what's your opinion, maxay tahay aragtidaadu. Guidance hanuunin ama wacyigelin, soo hanuunin ama wacyigelin, qof aad tusaale dhaqan aan wanaagsaneyn inaad ku aragtay, wax badanaad u sheegto wanaaga, ilaahayna waa ku anfacay, maxay noqotay wacyigelin ama hanuunin ama wacdin. Counsel la talin, qof ayaad aragtay isagoo dhaqan aan wanaagsaneyn ku jira, waad la taliso, waxaan kuma roona iska daa camal. Counsel la talin, ila tali, maxaan yeelaa balni arrintaas haysata igala tali. Solution xal, 1+1 = 2 waa xal. Alert feejignaan, meel ayaa waxaad ka dareemaysaa khatar ama dhibaato inay kaa soo gaadho, marka taxadar dheer ayaad muujinaysaa, aad baad u dadaalaysaa si aad dhibaato la kulmin. Alert feejignaan waa heerka ugu sarreeya ee uu qofku dadaal samayn karo. Agreement heshiis waa laba qof, wuxuu ka bilaaban karaa laba qof, laba kooxood ama laba dowladood iyo wax ka badan. Agreement. Negotiate, tusaale laba qof aa isku dhacay, qof ayaa dhexdhexaadiye ka noqday. Negotiate inta badan laba qof ma noqoto, waa 3 iyo wixii ka badan. Tusaale laba qof oo dhibaato cadaawad isu qabta ismaba arki karaan sooma, waa qof dhexdooda soo galay, kanuu la soo hadlay, kadib uu isu keenay, maxay noqon wada xaajood. Negotiate dhawaaqaysa mar haddaad aragto tii ay labadan shaqal dhinacan ka mareen qasab waxay noqonaysaa sha ay u dhawaaqaysaa. Negotiate wada xaajood. Determine go'aamin, tan go-aankii maaha, magacii maaha, waa ficilkii. Decision waa maxaan dhahaynaa waa magaca, laakiin tan have you determine, ma go'aamise. Recommendation maxaan dhahaynaa talo bixin. Shir baa la qabtay ama shaqaa la qabtay, waad ka soo talo bixisay, talo bixin. Feedback jawaab, qof ayaa fariin kuu soo diray, jawaab ayaad u celisay.
have you received my feedback jawaabtaydii meesha waa garan suggestion soo jeedin iyadoo la fadhiyo la hadlayaa tidhi amsaan qabaa aragtidan aan qabaa maxay noqon suggestion soo jeedin assistance caawin encouragement dhiirigelin gargaaridna way noqon caawinna way noqon kartaa encouragement dhiirigelin caution taxadar instruct waxay noqonaysaa tilmaamid qof ayaa ka oranaya markaas wuxuu ku dhahay ii tilmaan ceelka biyaha laga cabaayay so you just give an instruction meeshuu mari laad siinaysa waa garanay aan hoos u degno wax yar waxaan arkaynaa taas waan soo maray waxaan halkan ku jira daydaan si fiican u arkin cafwan iyagoon isku dayno inaan soo gaagaabino aan ka dhigno jilmada gaagaaban ayaa halkan inoogu jira so waxaa la yidhi I wanted you from this risk waan kaaga digay I wanted you waa xilli lasoo dhaafay I wanted you waan kaaga digay adiga from this risk khatartan aad maanta dhex taagan tahay waan kaaga digay is this your habit tan ma dabeecadaada ama dhaqankaaga miya dabcan si uuna ka filayn inuu ku arkay is this your habit tan ma dhaqankaaga ama dabeecadaada what is your opinion maxay tahay aragtidaada what is your opinion aragtidaada maxay tahay can you guide yourself to the right way fadlan ma ku hogaamin kartaa ama ma ku hanuunin kartaa ama ma ku wacyigelin kartaa nafsadaada wadada toosan ama hagaagsan can you please counsel me fadlan ma ila talin kartaa fadlan ma ila talin kartaa ama ila tali waa garanay have you solved the problem dhibaatadii ma xalisay have you solved the problem you have to alert from the enemy waa inaad aada uga feejignaataa cadowga you have to be alert from the enemy you have to be alert from the enemy waa inaad aada uga taxadarnaataa uga feejignaataa dheh cadowga you have to be alert from the enemy have you signed the agreement waxaan kusoo aragnay heshiis ay galaan laba qof laba kooxood iyo wixii ka badan agreement have you signed ma saxiixday the agreement heshiiskii ma saxiixday have you determined your marriage ma go-aamisay determine aan soo maray sama have you determined your marriage guurkaagii ma go-aamisay goorta uu dhacayo iyo meesha uu ka dhacayo waan garanay how many people are ready to recommendation of this meeting imisa qof ayaa diyaar u ahaa inay kasoo tala bixiyaan shirkan how many people are ready recommendation of this meeting waa aragnay taasna have you received my feedback have you received any feedback from your friend wax jawaab celina ma ka heshay saaxiibka kor waxaan kusoo maray feedback oo ah jawaab celin have you received any feedback from your friend wax jawaaba muuna ka bixinin ha iyo mid would you like ma jeceshahay to assist the vulnerable people ereyga vulnerable waa dadka tabarta yar aadka u tabar yar vulnerable faqoro dheh lamid would you like ma jeceshahay to assist inaad caawiso the vulnerable people inoogu jirtay assist oo ahaa caawin ama gargaarid vulnerable people dadka tabarta yar inaad caawiso ma jeceshahay waa garanay parents waalidku always mar walba like waxay jecel yihiin to encourage their children that's true waalid kasta wuxuu jecel yahay inuu ilmihiisa dhiirigeliyo lagama jirto inta badan waalid jecel inuu ilmihiisa niyad jabiyo parents waalidku always like waxay jecel yihiin mar walba
to encourage their children. Encourage oo dhiirigelinaan soo maray. Be caution. Caution waxa weeye taxadar. Allah maxay ahayd feejignaan. Be caution. Be ahaansho waaye ahaw mid taxadara oo maxaa laga taxadari from the criminal dambiilayaasha when you are alone. Marka aad keligaa tahay meel cidlaa maraysi dabcan aad uga taxadar dambiilayaashu si ayna dhibaato ku gaadhsiinin. waxaan u malaynaya waa casharkeena maanta waa fiican yahay soo niwaadhisa iyo isagoo ereyo cusuba iyo isagoo jilmado gaagaaban ku jira. hal mar waxaan ku laabanaynaa aan soo dulmaraynaa insha allah. warn ka digid ayaan dhahnay wax in lagaaga digo leedahay iska ilaali waan. warn ka digid. habit caado ama dhaqan. opinion waxaan dhahnay ra'yi ama aragtidaada. guidance hanuunin ama wacyigelin. counsel talo la talin. solution xal. alert feejignaan. agreement heshiis. negotiate wada xaajood. determine go-aamin. recommendation tala bixin. feedback jawaab celin. qof xog fariin kuu soo diray oo su-aashu kuu soo diray aad jawaab celinteeda siina. suggestion soo jeedin. assistant gargaar ama caawin. encourage dhiirigelin. caution taxadar. instruct tilmaamid qof aad tilmaanto. wanted so wuxuu dhahay anigu wanted waan kaaga digay you adiga from this risk khatartan aniga ayaa horaan kaaga digay. is this your habit tan ma dhaqankaaga iyo dhaqankaaga ama dabeecadaada. dee qofkaas waxaad ka filayn inaad ku aragtay dabcan waa dhihi. what is your opinion aragtidaadu maxay tahay. what's your opinion aragtidaadu waa maxay. what's your opinion. can you guide yourself to the right way. can you guide ma ku hogaamin kartaa yourself nafsadaada to the right way wadada toosan ama saxan naftaada ma ku hogaamin kartaa. can you please counsel me fadlan ma ila talin kartaa. have you solved the problem dhibaatadii ma xallisay. have you adigu solved ma soo xallisay dhibaatadii. you have to waa waajib. you have to alert from your enemy mar walba waa inaad iska ilaalisaa aada uga feejignaataa ka taxadartaa cadowgaaga waa inaad ka feejignaataa kana taxadartaa. waa garanay ka taxadar kana feejignow. have you solved the problem. you have to alert waa inaad ka feejignaataa from your enemy cadowgaaga waa inaad mar walba meel kasoo joogtaa feejignaata. have you signed the agreement heshiiskii ma saxiixday. have you signed the agreement heshiiskii ma saxiixday. have you determined your marriage guurkaagii ma soo go-aamisay. guurkaagii macnaha xilliguu dhacayo meeshuu ka dhacayo ma soo go-aamisay. how many people are ready imisa qof ayaa diyaara. recommendation of this meeting in ay ka tala bixiyaan shirkan. how many people imisa qof are ready diyaara. recommendation of this meeting inay shirkan ka tala bixiyaan. dabcan shiraa la qabtay yaa shirkan ka tala bixinaya diyaar waa layidhi inuu kasoo tala bixiyo. have you received ma heshay any feedback from your friend wax jawaab ah ninkaad codsiga u dirsatay saaxiibka ama kasoo heshay. would you like ma jeceshahay to assist inaad caawiso the vulnerable people dadka tabarta yar ee ducafada inaad caawiso ma jecenta. parents waalidku always like mar walba waxay jecel yihiin to encourage their children mar walba inay ilmahooda dhiirigeliyaan ay jecel yihiin. caution be caution ahaw mid taxadara. ereyga be wuxuu u dhigmaa in lagu yidhaha ahaw waa inaad. be caution mar walba ahaw mid taxadara from the criminal dambiilayaasha mid iska ilaaliyo ka taxadara noqo when you are alone markaad keligaa tahay.
in ashirkeenu uuna gaaban yahay si kolkii loo fiiriyana waa fiican yahay ciddii danaynaysa dabcan jecel inay wuxuun ka faa'iido jilmadahan gaagaaban qofka ardayga ahaa wax badan ayay tarayaan hadduu xil iska saaro marka waxaan leenahay insha allah saaxiibadiina la wadaaga idinkana kuwii ku faa'iida allah idinka dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.